بسم الله. عشركم waxaan ku qaadan doonaa static route. Hordhac yar haddaan ka siiyo static route waxa weeyaan routerkan kale noo yaala caadi ahaan fariintu markay soo gasho ma yaqaan fariinta halkay uu u dir lahaa. Marka laba xaaladood baa lagu sheegi karaa in la tilmaamo fariintu halkay ka soo gashay halkay ka baxday fariintu halkay ka baxayso loo sheego iyo inuu soo iskii u barto oo qaab loo yaqaano dynamic uu u barto. marka inta waxaan qaadan doonaa static oo aan u sheegayno fariinta matalan u socota 172.16 ka imanaysa 192 packet-ka waxaad u dirtaa serial interface-ka. Tan wixii halkan ka imanaya halkaas uu diraya. PC2 hadduu fariin soo dirayo oo ka imanaya 172 oo u socda 192 inuu routerkan ay fariinta loo soo diro dabeetana routerku interface-kaas uu fariinta ka diro. intaas oo qabanaya static route. marka normally waxa lagu talagalay laba router oo kala saas oo kala isku xidhan isaga waxa jira static default oo markaad internetka ku soo xidhisay isaga 10 kala ku qaadan doona bal interface-yada serial-kaasi ethernet-ka IP address-da tushooda ku qoran aan soo siino dabeetana aan u imanno static route. waxaan sameyn doonaa aan saraadi doonaa dhamaantood GNS3 baan isticmaalaya Cisco Packet Tracer oo isticmaali kartaa GNS also waad isticmaali kartaa waxaad isticmaali kartaa router haddaad haysatid caadiya. halkan waxaan noo diyaara PC1 PC2 isna waa diyaar oo virtual PC simulator. halkan waxaan ku haysanaa router 1 halkan waxaan ku haysanaa router 2. so aan ka bilaabo shaqada router 1 configuration-ka interface-da haddii la doonayo in la sameeyo waa in la tagaa global configuration waxaan qoranaynaa configure terminal. interface-ka waxaan ka bilaabaya ethernet-kaas ku xidhan yahay PC1 IP address aan soo siino inta kaliya tan u baahna waa IP address ku isticmaalay 192.168.0.1 with 24-bit mask. interface-ku by default waa shutdown ku soo kaya exit ma leeyahay. interface-ka kale waxaan gelayaa serial-ka 2/0 IP address-ka waxaan soo siinay dusha ku qoran 10.12.0.1/30 weeye oo godka ugu dambeeya 252 weeye no shutdown exit ba leeyahay. do show IP interface brief pipe include up wixii interface up ee kaliya tahay soo tusmanay labada interface IP address-da soo siinay oo kuwa 192 buu midna haysta midna 10 haysta. done. let's go to the router 2 inta in leeg aan soo sameeyo configure terminal shortcut waad qori kartaa oo ku shaqeynaysa interface-ka waxaan ku bilaabayaa serial 2/0 IP address 10.12.0.2 with 30-bit mask no shutdown. Cisco routers iyo switches iyo firewall-ka qalabka Cisco intooda badan waxay ku sahlayaan CLI-gan in shortcut aad isticmaashid aad soo gaagaabisid command-iskii waan ku qaadanaya. IP address-ka matalan 172.16.0.1 with 24-bit mask no shutdown and waxay noo hadhay labada computer. so let's start from PC1 IP address-kiisa waxaan leeyahay 192.168.0.50 24-bit mask weeye gateway-giisana oo raacinaya space markaad yaro baxo 0.1 wuxuu raadinaya in duplicate jirayn kale cidii la isticmaalaysa in kale waa kaas ma jiro uu qaatay IP address-ka. PC2 aan tago IP waxaan leeyahay 172.16.0.50 with 24-bit mask iyo default gateway-giisii oo router-ka ah. isna duplicate buu baaray duplicate hadduu jiran oo sheegay haddaan u jirina wuxuu leeyahay PC1 and PC2 actually halkan I don't know PC1 wuxuu sheegay IP address-kiisa waa ka. haddaba no PC2 baan joogaa waxaan doonaynaa fariin aan u diro PC1. so let's try ping waxaan leenahay 192.168.0.50 destination host unreachable buu leeyahay fariintaasi may gaarin. okay fariinta ayaa noo soo jawaabay gateway-ga halkan aan naga soo jawaabay inuu fariinta halkan aan la gaarsiin karin. router 1 aan u tago aan weydiiyo wuxuu ka warhaya routing table-kiisa show IP route muxuu ka warhayaa wuxuu ka warhayaa CL waxay u taagan yihiin waa local iyo connected. labada interface tooska ugu xidhan ee localka buu ka warhayaa ma yaqaan matalan network-gaas oo kale.
router 2 haddaan tago isna network ma yaqaan marka routingkan ama static route wuxuu noo sheegayaa networkyada kala duwan baan barayna router 1 iyo router 2 commandkiisu waxa weeyaan ip route space dabeetana question mark saar destination prefix inta doonaysa inaad baratid halkan aan joogaa waxaan doonayaa network aan barto networkaasaan sheegay hadda ip address ma sheegay waxaan sheegay waa networkna godka ugu dambeeya waa inuu noqdo 0 waxaan raacinaynaa waa maxay destination prefix mask oo subnet maskiya 255.255.255.0 question mark haddaan saaro halkan loads of commands baa soo baxaya waxaan sheegi karaa in interface-ka fariintu laga saaro IP addresskiisaan sheego ama interface-ka magaciisa sheego labadaba way shaqeynayaan so interface-ka idhahdo waa serial2/0 marka fariin ka timaado 192 ee u socota 172 fariinta halkan uu soo diro halkan marka loo soo diro router 2 bay imanaysaa router 2 fariintu marka uu soo gaasho u soo timaado maadaama router 2 uu ka mid yahay DC network toos buu ugu sheegayaa PC2 so sidaas si le command-kaas oo kale IP address isbedelayaan aan router 2 soo sheegno configure terminal IP route waxaan doonayaa inaan barano 192.168.0.0 with 24-bit mask waxaan u sii maraynaa interface-ka la yidhaahdo serial/2/0 oo ah kan waxaan u teganaa PC2 fariintii halkan aan arkayna destination host unreachable jihada saruna aan taabto markaas oo ka baxday fariintii waxay ku qaadatay 140 millisecond wixii ka dambeeyay 8:30 inta u dhaxaysa and aan idhaahdo show IP route waxa ka soo biiray waa maxay s maxay u taagan tahay let's see halkan waxay u taagan tahay static waxaanu baranay aan u sheegnay routerka in uu jiro network oo ka bilaabmo 172.16.0 oo toos ugu xidhan serial2/0 routerkana u soo waramay toos buu halkan ugu xidhan yahay sidaas leeg haddaan u tagno router 2 ayna show IP route static waxaan ku arkaynaa inuu yaqaan networkgaas 192.168.0.0 casharkan kooban waxaan ku qaadanay static route waxaan u sheegnay routerada fariin hadday u timaado halkii fariintaas loo diri lahaa aad baad mahadsantihiin